wanaagsan ciid wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo aad si toos ah uga daawanaysaan channelkeena Shumac Media qodobada aad ku daawan doontaan warka iyagana waxaa ka mid ah qaraxii ka dhacay gobolka Banaadir oo dad gaar ah si gaar ah u saameyn doona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo hambalyo u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan yihiin munaasabadda Ciidul Adha awgeed qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka iyaga Shumac Media daawada haddii aad inagu cusub tahay fadlan subscribe inoo saar si aad inoo dhiirigeliso wararkeenana aad u daawato goor walba warkii oo fidsan qaraxii xarunta gobolka Banaadir oo sababi doona arrin halis ku ah dad gaar ah tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii xanuunka badnaa ee ka dhacay aqalka dawladda hoose ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay soo tariyay dadaalo lagu adkeynayo ammaanka xarumaha guud ee dawladda Soomaaliya iyo xafiisyada kale ee ciidamada iyo goobaha ganacsiga dadka ay sida gaarka ah u saameyn doonta qaraxii ka dhacay gobolka Banaadir ayaa la sheegay inay yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba oo si gaar ah looga tixgelin jiray goobaha dawladda Soomaaliya marka ay u baahdaan diinta islaamka ayaa qabtay in loo naxariisto dadka naafada ama dadka baahiyaha gaarka ah qabo lana soo dhaweeyo balse qaraxii ay fulis haweeneydii aragga la'ayd ayaa sababi doona in dadka baahiyaha gaarka qaba aragti gaar ah lagu eego oo aysan helin adeegyadii ay horey u heli jireen sida sahlana loogu sameyn jiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidul Adha xilli uu kala qayb galayay salaadii ciida maanta bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ugu hambalyaynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan munaasabaddan barakaysan waxaan ku boorinaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo muwaadin kastaba inuu gacan ka geysto farxad gelinta dadkeena tabaalaysan lagana wada shaqeeyo danta guud oo ugu horeeyo amniga sidoo kale waxaa muhiim ah inaan ilaalino midnimada iyo wadajirkeena kuwaas oo dhammaantood tiir dhexaad u ah waajibaadka ayna farayso diinteena suuban ee islaamka waxaan idinka codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inaan gacmaha isqabsano oo aan ka shaqeyno sidii aan uga rumeyn lahayn himiladeenna iyo higsigeena ku aadan dib u dhiska dalkeena iyo dawladdeena ugu dambeyntii waxaan eebba ka baryaynaa inuu ciideeda nagu gaarsiiyo dalkeena oo nabada oo barwaaqo ah kuna sii tallaabsano horumar ballaaran oo baaxad leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ciid mubaarak رئيس وزراء حسن علي قيرة وشعب كصومالية دوجهم بليه مناسبة عيد عرفوا قيرة أيها وجوبا قيبودهان شعب كصومالية دين إسعافيان إسلام مركان أي كشقيان هرو مركز دالكو ذا سيدو كله وحور الجايين سنة كان سنة كيسو يبكو جارسيو باش يبرواقو مالنت عيد كوبادي عيد الأضحى أيام أنت سوين لوجد بالدقة يا مقالة مقدشة يجودهان مقالوين ككله دالك الصومالية بسم الله الرحمن الرحيم waxaan guud ahaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed uga hambalyeynaya munaasabadda Ciidul Adha waxaan leeyahay Ilaahay idinkaga dhigo ciid khayraysan sanadkan sanadkiisa kale Ilaahay idinku gaarsiiyo bashbashi barwaaqo sidoo kale waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsanayaa inay isu duceeyaan iscafiyaan meel walba ay joogaan waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu dalkeena nooga dhigo barwaaqo iyo bashbash dadaalka dadka Soomaalida ay ku jiraan inay halkaas ka sii wadaan guud ahaan inta waxa ku dhan war wixii dalka iyo daafaha caalamka inaga soo gaaray oo maanta uu ciidaha si toos ah uga daawanaysaan channelkeena Shumac Media daawada haddii aad inagu cusub tahay fadlan subscribe inoo saar si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay iyo macluumaadka ka qarsoon waad ku mahadsantihiin daawashada warkayaga